kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka Soomaalida iyo caalamka. Qodobada wararka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dacwadii muranka badda Soomaaliya iyo Kenya oo dib loo dhigay. madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay arrinta dacwadda kiiska badda ee Soomaaliya Kenya. wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda federaalka Soomaaliya Marwa Fawziya Abikar Nuur ayaa xaqiijisay in 24 saac la soo dhaafay la diiwaangeliyay 71 xaaladood oo COVID-19 ah, taasoo tirada guud ee xaaladda dalka laga diiwaangeliyay ka dhigaysa 1573 xaaladood. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan warkayna ee ku soo dhawaada qadar yar oo fariin ah. waxaa lagu jiraa 10kii dambe ee bisha Ramadaan ee barakeysan. waa bil ay muslimiinta ay inta badan acmaasha waajibka ay midda sunnadaba lah ay badiyaan. haddaba Aflax Charity waxay u mahad celinaysaa muxsiniinta gacanta ka geysay afurinta agoonta, dadka aan awoodin afurka iyo dadka barakacayaashaba. haddaba Sheekh Cabdinaasir Maxamed muxuuna leeyahay alxamdulillahi alladii hadaana لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله. dhammaan muslimiinta meel ay joogaan baan salaamayaa. afur wanaagsan bishii Ramadaan awaakhirkeeda 10kii habeenay ugu dambeeyay ayuu Ilaahay na soo gaarsiiyay ee la rajeynayay in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ina waafajiyo laylatul qadr khayr min 1000 shahr. habeenka kunka bilood ka khayr badan Allah ina waafajiyo. waa barnaamijkii afurinta Aflax Charity. waxaan soo booqnay degmada Daynila gaar ahaan xaafadda Siisi. ma sha Allah afurintii barnaamijkii afurinta ayaa caawa la sameeyay. dhammaan dadka khayrka ka qayb galay barnaamijkaasi ka qayb galay maartay sadaqada bixiyay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala miisaankooda xasanaadka Allah ugu biiriyo. gaar ahaan khusuusan caawa dadka khayrka iyo wanaagga sameeyay waalidkood afarta waalid ka geeriyooday iyo walaalahoodba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariisto. qabrigana Allah u waasiciyo, arrimaha iyo shaniga xaaladaasna Allah u fududeeyo. hadduu laba afurina laba qofood ajirkoodu leeyahay, hadduu saddex afuriyana waa la mid, yacni in ka badanna waa in ka badan. Allah subxaanahu wa ta'aala inaga aqbalo, waxa Allah ugu biiriyo. waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'aala sanadkiisa khayr iyo wanaag inuu Allah ina gaarsiiyo. dhammaan waxaan salaamayaa dadka muslimiinta mar labaad meel ay joogaan. haddaba qofkii raba inuu sadaqo sako ramadaanka gudihiisa iyo kadibba waxay ka codsanaysaa inuu ku soo hagaajiyo Aflax Charity si ay u gaarsiiso agoonta iyo masaakiintaba. waxaa kala xiriiri kartaan ciwaanada shaashadda idinkaga muuqdaba. ilaahay naga aqbalo wixii khayr ah adinka iyo annagaba. aamiin. waa tahay daawadayaal mar kale iyo kulan wanaagsan. waa maalin Arbaca ah 20ka bisha May sanadka 2020 aynu ku bilownay. garsoorka maxkamadda cadaaladda caalamiga ee ICJ ayaa ku dhawaaqday in mar kale dib loo dhigay waqtiga dhageysiga dacwadda muranka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya. war shalay ka soo baxay maxkamadda oo fadhigoodu yahay magaalada Hague dalka Netherland ayaa lagu sharxay sababta dib u dhigista iyo weliba jadwalka dhageysiga kiiskaas. warqad loo diray dowladda federaalka Soomaaliya iyo Kenya ayay garsoorka maxkamaddu ku sheegeen in markii ay dhageysteen codsi dib u dhigis ay soo gudbisay Kenya sidoo kale eegeen xaaladda qayrul caadiga ah oo ku saabsan xanuunka coronavirus oo ay go'aansadeen in waqtiga furitaanka dhageysiga kiiskaas laga dhigo sanadka dambe. 15 bisha May sanadka dambe ayaa si rasmi ah loo bilaabi doonaa dacwadda sida ay maxkamaddu cadaysay. dhowr jeer hore ayaa dib loo dhigay kiiska codsiga ka yimid Kenya dartiisa. say ahaatee murankan waxaa la sheegayaa in saameynta xanuunka COVID-19 ay qayb weyn ka tahay go'aanka dib u dhigista. dowladda Soomaaliya oo maalmihii dambe la soo dhaafay ay si weyn uga biyadisaneed dib u dhigista dacwadda ayaa hadda sheegtay inay u hogaansami doonto jadwalka cusub. ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo hogaaminaya guddiga dacwadda u qaabilsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa yiri mar walba Soomaaliya dalabkeeda wuxuu ahaa inaan dib u dhigis lagu sameynin dacwadda, laakiin hadda waxaan ku qasbannahay inaan ku qanacno go'aanka maxkamadda.
madaxweynihii hore dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay arinta dacwadda kiiska badda ee Soomaaliya Kenya. madaxweynaha ayaa ugu horeyn ka hadlay taariikhda la xiriirta sida dacwadda badda ku bilaabatay, sababta ay maxkamadda cadaaladda caalamiga ICJ ay u geeyeen. waxaan rabaa qadiyaddaas si kooban inaan uga hadlo. wixii faahfaahina macluumaadkeeda waa meel walba waa laga heli karaa, laakiin waxyaabaha aan isleenahay in ay ummaddu la socoto ayaa loo baahan yahay. haddaa xasuusataan horaantii 2017 ummadda intaan soo hor istaagnayaan waxaan ku iri aniga qadiyadda badda haddii aan madaxweyne ahay iyo haddii aanan ahayn iyo haddii aan xil hayo iyo haddii aanan ahaynba waa u taagnaan doonaa, waana u taaganahay anoo ballantaas fulinaya. marka maanta waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan la wadaago xaaladda maanta ay ku sugan tahay qadiyaddaas muxuu ahay weyn oo muhiimka noo wada ahay. taariikh yar oo kooban haddaan ku bilaabo, waad ogtihiin bisha Agosto 2014 ayaa dacwadda badda dowladda Soomaaliya ay geysay maxkamadda cadaaladda adduunka ee magaalada Hague. haddaba garsoorka maxkamadda cadaaladda caalamiga ee ICJ ayaa ku dhawaaqday in mar kale dib loo dhigay waqtiga dhageysiga dacwadda muranka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. war ka soo baxay maxkamadda fadhigeedu yahay magaalada Hague dalka Netherland ayaa lagu sharxay sababta ay dib u dhigista iyo waliba jadwalka dhageysiga. wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur ayaa xaqiijisay in 24 saac la soo dhaafay la diiwaangeliyay 71 xaaladood oo COVID-19 ah, taasoo tirada guud ee xaaladda dalka laga diiwaangeliyay ka dhigaysa 1573 xaaladood. bukaanada cusub oo 52 ka mid ah ay yihiin rag, 19 kalena waa haween, waxayna kala joogaan 46 Jubbaland, gobolka Banaadir 17, Somaliland 6, Puntland 2. laba ruux oo COVID-19 ayaa ugu geeriyooday Somaliland iyo gobolka Banaadir, waxayna tirada guud ee geerida noqonaysaa 61. Marwa Fawziya Abikar Nuur ayaa sidoo kale caddaysay in xanuunka corona ay ka bogsadeen 10 qofood, taasoo tirada guud ee dadka ka bogsaday ka dhigaysa 188 ruux. walba hamigiisa marbuu helayaa Mushifa Herbal hal mar yaa la xiriiray. baba sir hadda la dhibto taadu gaas ku haleelo hadalkii kari weysay oo Mushifa Herbal dadow hadda kale la xiriir. Mushifa Herbal waa hooyadii Herbal ko hadaltaa kama taagnay hadda kale la xiriir. waa Herbalkii u sareeyo tayadii waa la hubaayo Mushifa Herbal hadda kale u doono. Mushifa Scientific Herbal Clinic waa xaruntii ugu horeysay oo Herbal ah oo nooceeda laga furo dalka gudihiisa, waxaana loogu yeeraa hooyada Herbalka. xaruntu waxa ka howlgala dhaqaatiir wax ku soo baratay dalka Mareykanka in muddo aan ku soo shaqeynaya aqoon iyo khibradna u leh isku daweynta Herbalka. cudurrada lagaaga daweynaa hadii Allah idmana waxa kamid ah daweynta cudurrada guud gaar ahaan baabasiirka, gaaska, ka saarista dhagaxaanta galaxmaytida, kaliyaha, daweynta beerka iyo daweynta cudurrada haweenka, caado wareerka, hormone imbalance, burobiyoodka ama nabarrada ka soo baxa xubinta taranka, nafaqeynta hooyada uurka leh iyo ilmaha, iyo daweynta madhaleysnimada Allah haye, daweynta cudurrada maskaxda sida hurdo la'aanta, walwalka, murugada iyo walbahaarka. Herbalka xaruntan ka helayso waxa uu ku saleysan yahay aqoonta sayniska practice. sidoo kale rugtu waxaad ka helaysaa shaybaar casri ah iyo kombiyuutarka bioenergy scan. farmashi ay yaalaan dawooyinka caadiga iyo kuwa Herbalka oo laga kala keenay dalalka Mareykanka, Canada iyo Turkiga. xaruntu waxay ku taallaa dhismii hore ee Theater Ali Kamin. ama wixii dheer waxaad kala xiriirtaa Eberli Hal Sagaal 24 21 48 ama Eberli Hal Sagaal 99 41 32.